بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد نبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan idiin sheegay inaad tahay asalkii aadanaha. maxaa cadaynaya? waxaa cadaynaya DNA-gaada bal eeg, DNA-gaada ancestry DNA-ga bal fiiri, genealogicalka ka soo tag ancestry DNA-ga maxaa ugu duway dadka kale kooda, maxaa la mid u noqon weysa? waayahay intaynan sii gelin intaa DNA-ga inaad iska fiirisid waa adiguna waa kuu fiican tahay si aad u ogaatid inaad tahay asalkii aadanaha inaad tahay oo aan laga asalsanayn oo cid kale kaa soo horeyn. waayahay waxaan imaanaynaa marka nabiyullaahi ciise ka hor calayhi salaam, ka hor intuusan imaan 1439 ama 39 maxaa jiray halkan? boqortooyooyin baa joogeen. waayahay gabadhii boqoradii dhulka Masar ka timid, faraacinada ka timid ee dhulkan udgoonka u bixisay, dhulka udgoonka bay tiri iyadoo ma bixin, waa Romaaniyiintuna way odhan jireen, Griigu wuu odhan jiray ee badmareennada ahaa. dhulkii ilaahiyada waa run, ilaahyo badan ayay iska caabudi jireen dadka diinta islaamka ilaan ma soo gaarin weli. wayaabaale, waaq, matambowlo, kud, karood, waaq, waxyaalo badan. yahugana isticmaalna maaha adigu, yakaaf, waa magacyo badan oo ay isticmaali jireen. waxaan soo sheegnay meelaha qaarkood sida buuraha qaarkood ay ku qoran yihiin qoraallo la mid ah kuwii dadkii hore, matalan kuwa ahraamta laga helo qoraalladooda iyo kuwan sidee iskugu kombeer garaynaa inay isku mar ahaayeen? kee baa horeeyey? anthropologist inaa ahaataan waa loo baahan yahay, archaeologist inaa ahaatidna waa loo baahan yahay si aad raadkan faca weyn leh aada u ogaatid. imise qolfoof oo kumanaan sano jiray yaa laga helay. dadkan aan ahayn Soomaalidu waxay yidhaahdaan bariga Afrika baa laga helay. way jirtaa bariga Afrika, laakiin kuwii ugu qadiinsanaa waxaa laga helay meel Boorama u dhow baa laga helay oo ilaa iyo 3000 oo sannadood ama ka sii badan intii dhalashadii nabiyullaahi ciise calayhi salaam ka hor weeyaan. weliba marka ka hor intee ka sii horeeyna marka adaa laga doonayaa inaad hesho. waxaan kuu sheegayaa ancestry-ga DNA-ga wuxuu muhiim ku yahay. annaga keenna cid badan, dalal badan ayaa laga helayaa. yuhuudaad ka helaysaa oo yurubaad ka helaysaa oo bariga dhexaad ka helaysaa, waxaad ka helaysaa bariga fog ayaa hataad ka helaysaa, waxaad ka helaysaa Afrikaad ka helaysaa, Afrika qaybaheeda kala duwan ayaad ka helaysaa. waa nimco ilaahay sameeyey. waayo aan usoo laabana marka taariikhdan markay timid maxay tiri Xabsad Shuud? waa dhulkii awoowayaashay, ancestreskeeda awoowayaasheedii Soomaali bay ahaayeen. Soomaali waxaan soo sheegnay lahjada lagu hadlayay inay ahayd lahjada mayga oo min Soomaaliya oo idil ku hadli jirtay. kama hadlayo min Looyacadda ilaa Raas Jumbo, kama hadlayo dadka ilaa Raas Kamboni unbay u garanayaan. Raas Kamboni maaha, waa kasii shisheynaa adeer, barta waa kasii shisheynaa. 111 kilomitr bay u jirtaa Raas Jumbo, halka la yidhaahdo Raas Kamboni. Raas Jumbo ama 1 degree baa loo soconayaa. kama hadlayo xuduudaas, kama hadlayo. waxaan ka hadlaya Soomaali, magaca Soomaaliyeed ayaa la isticmaali jiray. Soomaal waa NFD hadday tahay kelinka shanaad, hadday tahay dhulyowga Soomaalida, hadday tahay Oromada, hadday yihiin ama Cafarta ama Danaakiisha dadka loo yaqaan hadday yihiin, waa danagalo Soomaali.
أورام Soomaali ayuu ahaa lahjaduna waxaan sheegnay inay ahayd lahjada ugu qadiimsan maayga waxaan sheegnay dhulka ilaahiyada inay oran jireen dadkaasi waagaasi imaan jiray dhulkan waayahay xilligaas iyo xilliga ka horeeyba ma og tahay dhalinyaro in adduunka intiisa kale aan ganacsi Soomaalida ganacsi u geyn jirtay waxyaalo kala duwan ee geyn jirtay oo lagu sameeyay Soomaaliya dalka Soomaaliya marka waa min gees ilaa gees kama wado min looyacad ilaa raas jumba kama wado oo kama waxa weeyaan maca kilinka sanaad ku dar maca NFD dhulka la yiraahdo ku dar maca afarta ku dar maca oromada ku dar Soomaali bay ahaayeen waaye dhulkii ilaahiyada baa la oran jiray ilaahiye kala duwan bay maartay samaysteen والعادة بالله واجس به الدين تمسوا قارن عليه الصلاة والسلام ويابا واق وحبي أورنجرين متنبولو هبلو كد يكرود ياهو يكاف شرك ومقعد إلهي وقرناين أي أهد واجس وياهي dhulkan barakaysan oo ilaahay barakeeyay ee nimcay wax walba ku deeqay waa dhulkii nabi ilaahay aadam calayhi salaam oo ka bilowday farciisa ka bilowday cidii doonaysa cadeymo waa loo hayaa waliba waxaan idin sheegayaa dhalinyaro anthropologist archaeologist yaal badan way yimideen dalka dawladihii kala duwanaa way iska eriyeen qaar waxay doonayeen in sirtan la way qariyeen waxyaalo kale ayay sheegeen niman macallimiin isxilqaame oo tagay dhulka taariikhiga ah way jiraan markay keeneen cadeymihii ay keeneen waxaa la yiri ama waad waalantihiin ama iminkaad waalan rabtaan وأقونتي بلغوكلا وعدينتن كالي أرجو عدينتن إلا سوء وتعيها أذن واعية يلاقي ولا سكاكا مسمعين تو سكاكا هارين أن دول كان بركيسن تضبط عيدود كل من تضبط عيد اللي لها آدم لقى أمي maxay dhulka kale looga heli waayay toddoba ciid dhul kasta hal ciid oo gooni ah ee lagu garanayo ayuu leeyahay waaya nimcaadka kale yaal nimcooyinka yaala ilaah unba garan kara annaga ma garan karno ma sheegi karno way fara badan yihiin mar lamana tirin karo lamana oran karo waxaas laakiin inta aynu soo aragnay waxa ugu ballaaran nimcooleyda xoolaha kalluunka beeraha macdanta iska badaa lama tirin karo aan u laabto marka taariikheennii hore waxaan niri ninkan oromo Soomaali buu ahaa waxaan niri ninkan dankeliga cafarta Soomaali buu ahaa baan niri Soomaaliya oo idilna lahjada maayga ayaa lagaga hadli jiray baan niri tusaale waxaan u soo qaadanay dabagaalaan u soo qaadanay gaalkacyo ku dar waani waxyaalo badan oo ilaa imikana shaqeeya kalimaad badan oo ilaa imikana shaqeeya oo laakiin lahjada raxaweenka ah lahjada maayga ah waa lahjad aad u daaweyn oo aad u facweyn luqadaas baa lagu wada hadli jiray wax gooni ah ma jirin laakiin luqadii ayaa noqotay wax si تغير كل عاص ببدشة محاتري صوب حذي محافرها صوب حذي يا ملفتها أي صوب حذي يعني وحي بقى مارتي سرقروقي قامت جماست حتى وجرتها وصوب حذي ومحاربتها محل دوليسها ما يفضيت ليرونا مركا إلى الآن كان لهجته قاربة سيدود الشقية وسيدي أوريجين كأها الشقية
أنا وصل لابته مركب إنه نهاية أنك أصلك آدناه ما أقتها دليروي raadad badan macnaha tixraac wax la tixraaco oo badan oo ambiyadii hore inay dalkan joogi jireen ama ay yimideen waa calaamad oo la taaban kara ay ka tageen in yar mooye inta badan ma rumaysan karto ma ogtahay nabiyullaahi suleymaan calayhi salaam inuu aathaar ku lahaa halkan Soomaaliya khaasatan weliba dhinaca waqooyi bari waqooyi galbeed markaa ka timaadid daalo buuraha maaragtay dhaadheer taariikhdani waa muhiim inaad la socotid waayo waxaad ogaanaysaa inaad tahay asalkii waxaad kaloo ogaanaysaa inaad tahay dalka iyo dadka ugu qanisan adduunka waxaad tahay aad ogaanaysaa inaad tahay isirka ugu qaalisan dunida ee u baahan badbaadin u baahan waxaad ogaanaysaa insha Allah kalibyada soo socda ayaan